maantana xogteena waxaynu ku eegi doonaa gobol jasiiradeedkan safka hore kaga jira kuwa ugu quruxda badan ee la booqdo marka laga hadlayo guud ahaan Afrika, gaar ahaan xagga bari ee qaaradda. Xeebaheeda nadiifta ah, ilbaxnimada ganacsiga dadkeeda iyo ammaankeeda ayaa jasiiradani ku kasbatay dalxiisayaasha sida maalinlaha u taga halkaa. Tanaynu ka hadlaynaa waa Zanzibar, oo ah gobol ka tirsan Tanzania, balse haddana maamul ahaan ka madax bannaan dalka intiisa kale. Subscribe saar channelka haddii aad ku cusub tahay, muuqaalkana faafi haddii uu ku qanciyo, kuna soo dhawow 5 xaqiiqo ee aan kaaga hayno Zanzibar. 1. Inta jasiiradood ee ay ka kooban tahay. Zanzibar maaha hal jasiirad ee waxay ka kooban tahay ilaa 22 jasiiradood oo ku yaala badweynta Hindiya, waxaana ugu waaweyn 2 jasiiradood ee la kala yiraahdo Pemba iyo Unguja. 2. Caasimadda Zanzibar. Caasimadda gobolka Zanzibar waa Zanzibar City, halka magaalada ugu weyn taariikh ahaan ay tahay Stone Town, taa oo ahayd caasimaddii hore ahna mid ka mid ah goobo taariikheedyada ku jira liiska hay'adda UNESCO. Dhismayaal qadiimi ah iyo raadad taariikheedyo gaboobay ayayna caan ku tahay. 3. Dagaalkii dunida ugu muddada yaraa ee Zanzibar ka dhacay. Dagaalkii ugu yaraa ayaa la sheegay inuu ka dhacay Zanzibar, ka oo ahaa midka lagu sheego The Anglo-Zanzibar War. Boqortooyadii Ingiriiska ee halkaa gumaysatay iyo saldanadii Zanzibar ayuu u dhexeeyay, waxaana uu dhacay August 1896. Kaliya 45 daqiiqo ayuu socday sida la sheegay. 4. Diima ay haystaan dadka ku nool Zanzibar. Tirada ugu badan ee dadka jasiiradda Zanzibar waa Muslim. Masaajidada ugu caansan ee halkaa ku yaalana waxaa ka mid ah Kizimkazi Masjid oo ku yaala Dimbani. Dad haysta caqiidada Kiristaanka ayaa ku nool, waase tiro yar. Guud ahaan tirada dadka ku nool Zanzibar waxaa haatan lagu sheegaa 1.7 milyan oo qof. Luuqadda halkaa lagaga hadlaana waa Swahili. 5. Calanka Zanzibar ee haatan waxa uu jiraa kaliya 17 sano. Calankan 3 liid ee buluuga, madowga iyo cagaarka ah leh, sidaad arkayso waxa xagga sare kaga lamaan calanka Tanzania. Sidaan hore u sheegnay, maadaama gobolkani sheego inuu ka madax bannaan yahay dalka intiisa kale, ka hor 2005 waxa uu lahaa calanka madax bannaan midabada kan guud ee qaranka Tanzania. Ha yeeshee waqtiga 2005 ayaa labada dhinac ku heshiiyeen in la bedelo calankii hore ee gobolka, isla markaana midabadiisa lagu daro kan guud ee qaranka. Kanina waa calankii 5aad ee Zanzibar yeelato ilaa 1860. Maantana xogteena waxaynu